galaan khilaaf iyo kala shaki waxaan ka sii fogaanaynaa jidkaas aan dawladnimada ku baadi goobayn sidaas daraadeed maadaama la isiiyay fursad aan halkan uga hadlo maanta waxaan dadka Soomaaliyeed madax iyo shacab dawladda hadda joogta iyo madaxdii ka horeysaba dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka waxaan ugu baaqayaa inaan ku cibri qaadano wixii aan soo marnay muhiimad iyo mudnaan gaar ahna siino danta guud sharcigu taliyo aqliguna hago arrimaha masiiriga ah ee dalka iyo dawladnimada oo ay ugu horeeyaan wax ka bedelka garsoor dastuurka iyo awood qaybsiga dalkana laga wada tashado laga gaaro talo midaysan iyo go'aan loo dhan yahay oo danta qaranka iyo wadajirka ummaduna ay gundhig u yihiin mar kale hambaliyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku xigeenkiisa waa idin salaamay reer Puntland wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh